arigii la qalay arkay ishiisa fiirnays anu waa fiirnooyay markaas wuxuu dhahay saaxiibay we bonded we were scared together maantana waa cunaysaa miya so August from there on I hate the smell of hilib raaba waa salaamantihiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada beertayda maanta waxa ku soo kacay qabow markaas waxa igu soo dhacday heesto oo maalinleed aan dhageysanayay wiilka ilka casala dhaho and I never thought Somalida could rap but I love that song kulaha diiday anigu diiday qabowgan diiday yeah copyright darteed I couldn't play the song obviously laakiin qabowgaanaytay waan diiday markasta waxaas dhahay hawada soo kululaanayso diraci baadiga soo xiro kabihi tuuro dacas gisho every time I think about that there's a qabow iyo baraf lena loo sheegaya so tubada meeshan biyaha ka waraabi dripping is sameynaysay so adkeenaya ka bacdi xaraba meeshaanad inaan waraabiyo and then I wanted to qabowga dartiisi I can't trust ina wax kasto aan beeraha dartaan ina protection sida u siiyo so I'm going to agadahan in a different video install gareey it's not too much work maaha yeah pressure cooker oh man the whole place sounds like hilib I don't like it عذا أنا هلب معني إذا ما هو كس أو مسدهاي فكر كيجا أن إلى الصناعة يو برور هلب يو كم وذي ما كان له هلب مرة بينا جعله ما جعلينا هلب عنه because when I was younger Kenyan جوجي and when I was a kid وحاسس استعملنا مر أو بحاجرته عيدة أهد لبسال ده واديده I think if I remember this correctly markaasa arigii apartment-ga deganeen ariga la soo gaday ani ariga ninku ahaa sida u urayle oh my god it was disgusting anyways geedku waa uraya ma tahay so waxaa la dhahay haddii aan labisanaynin oo cidda la soo tukanaynin jikada gal oo weelasha dhaq hayaan jikadan gala markaas ciddii markay suuqa ka imaadeen arigii ninkii keeneen meeshii oo arigii ay hoos ku qal lahaayeen inta ay qalin إذا درت جيران جرت fifth floor أدقنين على إيسو صاره مركز جكدي اللي قوله حرين I swear to God that thing أنويك عبسده أنيك أسقى كعبسده لبدين ما يا أسكو جرنا قيلو and then this thing جكده دنو يقوريه مركز الماء هاي I go downstairs مركز أرجع لقلاي أركه ishiisa fiirnays anu waa fiirnooyay markaas wuxuu dhahay saaxiibay we bonded we were scared together maantana waa cunaysaa miya so August from there on I hate the smell of hilib markaas ciideena ma arkina xasidin soo yihiin wax ka hilib jecel Soomaalina ma jirto my whole family likes hilib especially hilibka ariga pass سؤال ربنا كجواب قر ولا شيء زمزم رأه يسوي ديسي أبايا I think هدي السؤال هذا أن فهمت سيدان وآخرية it looks like عصا دبايا مش أدي أو حكو بيرتيد the question هدي أكاج جواب أبايا هدي وعصا دبايا وما أركنا مش خضارتي وحكو بيرن هذا عصا كاس الحاجة لعي two different ways أسمع كرتها mid وحنا قلنا you do what's called edging and I'll try to show you that in a different the flower garden قرق هرتيسة الواحد اللي استعماله دولكيا وحكو باره because I want it to be just flowers قرق هرتيسة so there's one thing that's called edging كاس وقتصايا and then the other level the other thing is هديو الوحيد أنا تأهي سنين أعرفتد إن أولي واحد بيرتد سيدي عسك كاس الحقلين ماشي وحكو بيرنس is use box كنا it's a cupboard and I have extra storage جاندرت hosted يالان all of these boxes وهدرت ماشان وح يجو بيرن أنت أن عرض عن كشبين وحان دقا box أنجليا I think فيديو الشلة أن صار ما هنا مسكي كهرية
in a small box الواحة سيت ماشي كجرو بعد كهوسية أنيقو والعرق شبه ما نتوسي أنيقو بوكس كل الله ضاي ماشي قلينايو so كبعدي وصول لابتي عرانكو شبه مركز كبعدي وحكو بيرن دونا so box كانت إنه يحكوا في عينهن عاسك لنا يدل دونا because عاسك وحي أباهن هاي light iyo oxygen iyo waxaas u baahan yahay inuu koro so haddii oo aan boxyaal badan oo ii yaalaan waa aragteen meeshaas igu tuuran yihiin haddii oo meeshaanayta dhan aan boxyaasha aan ku daboolo oo aan continuously boxka wuu qoyayaa wuu sii bololayaa and then waxaa dhan meeshaanan carro isku bedeli doontaa cooska dhan aa dhimanaya so haddii oo walaashiis aad taas aad tijaabin kartid that would be one solution the other solution waxay noqonaysaa guriga hortiisa nigeenaya actually guriga hortiisa intaan aadin waxaan rabay qabowga dartiis gacmihii dhinaab ay xanuunaya bismillaah inshallah the video aan soo saaraya this is the greenhouse aan itusaaya bac waaye wallahi marka inta madax la galo it's much warmer and these are beans waaye I think digirti qolof waa iga tagaaba nixay waxaan u maleeyay inuu qabowgii u galay laakiin digirta qolofkeeda weli ku dhigan but لكن these are beans كانت ما شاء الله عسكي واكنا عقدها أنيت وكفريان لماش أن كورابي واي لكن والله they don't look stressed نون مأهو and sometimes when you have a different change in temperature you can see the stress هذا دي أنا أركي لها إن هودا greenhouse كانت إن كهلين all these قدرات كانت دن ميد عمل ماش أنا سانو سؤولي لها يعني بنانك سو استاغ gacmihii qabowga inta istaaga gacmihii qandac waay so alxamdulillah shakadaanite si fiican u xireyna badalkana qaadanayna and then I want to go show you the edging waxa ka wada maanta waxa u maleynaa geedkanite in la bixin doono isniintaanite laakiin it's Monday the 26th لا إله إلا الله جاكد محقسو قادم واي and then I think برمي أمس برد دنبني علامة دان عقاركم جديدو ماشان قنجيرا اللي قد دونا انت وح قدين وحالي قربا كمبانياش أو كوان اسكالي مترياشان عمل because they have wires buried دولك ويمانا يعني فيلوينك ماشي كجرانا لغوط الماء معايا علنا لغو سرايا مكاس waxaa lagu dhahaa meesha isku qodin laakiin ani ujeeda calaamad cagaarka dhinacaan sidaas ganjeelaha la qodi doona ma sha Allah ubaxyaasha meeshan ka soo socdaan waa weyn su'aashan ku laabano the other method ani aan isticmaalo oo cooska aan ku fogeeyo meesha ay wax igu beeran yihiin qudaar mise ubax ahaato is what's called edging. And edging simply means waxa xariijin aad sameynaysaa oo mise line oo aad qodaysid so that you separate cooski from meesha ay beerta ay ku tahay. Let me show you what I mean. So for example, meeshaan ay imaanayna cooskaanayta wuxuu soo dhex galooyaa haddeertaan meesha ay ubaxyaashaanayta hadda igu beeran yihiin. So what I'm going to do is what's called edging. So this is called edging. I know the line is not perfect, but the purpose of edging waxay tahay marka badalka carrada sidan u gadisid line ay qodaysaa. And then meeshaanayta waxay noqonaysaa meesha ay wax kugu beeran yihiin sida aniga meeshaan camal ay ugu beeran tahay. Dhulkii markaas gacanteeda inaad geli karto. The grass intuu oola safkaanayta meesha cooska uu saf u soo gali lahaay. meesha cooska safar soo gali lahaay
oo meesha qudaarta imise ubaxyaasha kugu beerayin uu soo gaari lahaa uu dhimanayaa because wuxuu u baahan yahay meel oo continuous ah inuu cawska uu ku koro. So over time carrada meeshan ku jirta laga yaabo inay soo degto in ay meeshaan inta u soo dhawaato ay soo buuxiso line-ka hadda aan sameynay oo jeedin amalena ee markaas that gives it a chance for cawska inuu dego inuu meeshaan inta uu ku soo koro hadana. But haddii oo mar walba ka warqabtid meeshaan inta imaanaysid asafaynaysid line-ka inta and I'll do a new video inshallah anigoo meeshaan inta dhan edging-ka sameynayo and to say how clean it is marka edging-ka samaysid because it separates meesha oo cawska ku rabtid inay caws ay ahaato iyo meesha aan rabin inay cawska u soo gaarin. So the edging is one of the easiest ways, the cheapest way, and you can control cawski siduu meesha cawska ku aragtidba waa imaanaysaa waa ka soo qodaysaa. So I don't know if this explains Abayo. It's so cold. Lakin those are the two ways ani aan hadartan aan wax ku beeranayo aan cawska iskaga ilaalin karo. boxyaal la isticmaali kara markii oo aan alwaaxyada sidaas camal aan ugu beeran karo. Marka kuwaanetana waxay ku fiican yihiin markii oo alwaaxa waxa ku beeratid is meel yar oo kooban waaye. And then sometimes adoo waxaas dhan sameysay meeshan xataa carraa ka soo dhex bixi maxaa la dhahaa cawska ka soo dhex baxayo. So kan camal oo jeedin. So there's a lot of it's easier to clean waxaas camal. So I hope Abayo that answers the question with the sidaan u fahmay hadday saas ahayn comment kale isoo qor inshallah. So today a'udhu billahi it's too cold, it's too cold, it's too cold, it's too cold. Too cold. Why? Alhamdulillah. So afurka soo dhow ani I don't know why mar walbo aan shaqada beerta aan sameynaya it always has to be 2 to 3 hours before afurka la gaarin. Maybe gaajada marka iga badato maybe that's because gaaja qabanaysa waxaan dhahaa madadaalo u baahanahay. So sheekada meeshaan ku soo koobaya inshallah. Next time jacket soo xiro. And if you're new to my channel, Qaraba, please make sure you subscribe, give me a like.